Soomaaliya waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhaya dhirta lagu beerto wadooyinka hareerahooda iyo guryaha taasoo la sheegay in bilicda deegaanada ay sare u qaadayso. Carmo oo ka tirsan Puntland ayaa dadku hadda waxa ay bilaabeen in wadada hareeraheeda iyo guryahaba ay ku beertaan dhir taasoo duqa Carmo uu sheegay in laga soo dhoofiyo wadamada Khaliijka Carabta. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac. sanadihii la soo dhaafay waxa gudaha magaalada Carmo ka socday dhirayn ay wadaan aqoon-yahano iyo waxgarad iskood isugu xilqaamay kuwaasoo ku midoobay urur lagu magacaabo Basma. waxaan ku beeray dhirta magaalada banaankeeda sida dariiqada iyo guryahaba. runtii dadku bilowgii waa ku adkayd laakiin markay fahmeen faa'iidada ay leedahay dhirtu haday noqon lahayd geed miroodka oo dhir badan oo miro soo saartay iyo haday noqon lahayd dhirta bilicda iyo quruxda iyo haday noqon lahayd dhirta la harsanayo intaba waxa weeyaan dhirta meel fogfog baan ka keenaa. runtii bulshada reer Carmo waxay fahmeen in dhirta la beero ay faa'iido tahay. dhirta inta badan waxaan ka keenaa sida dawladda Khaliijka oo kale oo dhir taysan oo nafaqaysan ah. haba yaraatee wax lacag ah oo dhirta aanu haba yaraatee dadka ka qaadno. qofka geedka waa loogu ridaa gurigiisa la horgeeyaa waa lala socodsiiyaa wax lacag haba yaraatee maaha waa tabaruc si bilicda iyo deegaanku u soo baxo. dhirayntan magaalada waxa barbar socda waraabinta iyo ilaalinta koritaanka dhirtaas. waxaan isku daynay inaan booyad soo gadno alxamdulillah waa ku guuleysanay. booyadaasi waxay waraabisaa dhirtii aan beernay. Dr. Shariif Maxamed Maxamuud oo kamid ah dadka deegaanka ayaa ka waramaya faa'iidada ay dhirtu leedahay. waxay ka qayb qaadanaysaa caafimaadkii oo waxay soo deynaysaa habeenkii carbon bay sii deynaysaa maalintiina oxygen bay soo deynaysaa bini'aadamku ka faa'iideysto. dhaqaale ahaan bay ka qayb qaadanaysaa dhirtii waa lagu ganacsanayaa waa la harsanayaa. waxay kaloo ka qayb qaadanaysaa dhirtu bismillaahir rahmaanir bilicdi magaalada oo magaalo cagaar ah iyo magaalo qaxana bay suma eka. marka dhirtu waa nolosha bini'aadanka barbay ka tahay. Faaduma Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso.